safiirka Somaliland u fadhiya qaaradda Australia ayaa ka hadlay munaasabadda xuska 18 May. Ambassador Xirsi Aadan Cali ayaa waxa uu qaybaha kala duwan ee shacabka Somaliland ugu hambalyeeyay munaasabadda xuska 18 May. Waxaanu sidoo kale safiirku fariin u diray jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan qaaradda Australia. Waaqa iyo hadalka safiirka ayaa waxa uu dhignaa sida tan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaantiin anigoo Xirsi Aadan Cali ahna wakiilka Somaliland u fadhiya Australia waxaan markii ugu horeysa u mahadnaqayaa Ilaahay oo maanta fursadan ina siiyay. Waxaan halka ka salaamayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo marwadiisa saddexda xisbi qaran iyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland. Inta waxay igu xigtaa waxaan doonayaa dhammaan in aan dadweynaha Somaliland iska jooga inaan ku yiraahdo hambalyo. Waa maalin ugu weyn, waa maalin dadkeenii iyo hantideennii awadeed u soo luntay. Sidaad ogtihiin 18 May ma aha keliya maalin baadhi, waa in la xasuusto dadkii u soo dhintay, dadkii u soo halgamay. Sidaad ogtihiin Somaliland xaalado badan bay soo martay. Cadowgeeduna sanadkan maanta maalin ka badan yahay ma jirto. Maanta adduunweynaha waxaa laga rabaa xafladda 18 May gees walba iyo meel walbaba isku duubni iyo midnimo in la wada muujiyo oo aad loogu dabaaldego. sababtoo sida ogtiin sanadkan waa aqoonsiga weeyaan aqoonsigana waxaan rajeynayaa insha Allah sanadkan si degdeg inuu noogu yimaado hadii la haydno. Inta waxay igu xigtaa waxaan doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo jaaliyadda Somaliland Australia sida ay isugu duuban tahay mar walbaba uga soo qayb gasho xafladaha barnaamijyada iyo arrimaha Somaliland ku saabsan iyo horumarinta Somaliland. sida ogtihiin dhowr barnaamij bay noo soo socdaa ku saabsan xornimadeena nabaxyo. waxaan jeclahay dhammaan in la wada taageero because aqoonsigeenu waxay ku xiran tahay midnimadeena. First of all, we have to be united. inta waxay igu xigtaa waxaan doonayaa halkan inaan aad uga mahadnaqo wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxdeeda oo ugu horeeyo Dr. Ciise Kayd oo runtii lafdhabarta qurba joogta, one of the best leaders and runtiina soo mara hoggaan wanaagsan oo always there and telefoonkiisana mar walba maaragtay noo furan yahay. iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka Rooda Jaamac iyo DJ-ga Axmed Abakar. marka waxaan leeyahay dhammaan Somalilandska adduunweynaha jooga la isku dubnaado. sanadkan waa sanadkan tusin lahayn adduunweynaha cadowgeena waa sanadku ugu weyn yahay. 18 May waa ku nabar 18 May waa ku nabar. marka insha Allah sanadkan midnimo iyo horumar baan dhammaanteen idin wada rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.